waxaa maanta si rasmi ah gudaha magaalada Boorama looga daafuray meherad casri ah oo nooceedu ku cusub yahay guud ahaanba magaalada Boorama isla markaana aad ka heli doontaan agabyada haweenku xidho iyo kuwa isku qurxiyo meheradaasi oo loo magac bixiyay Yusra Collection oo ku taala bartamaha magaalada Boorama gaar ahaan dabaqa Arawelo ee bartamaha magaaladani Boorama ayaa waxaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray meheradaasi casriga haween isku jira qurbo joog iyo qolqol joog iyo gudoomiyaha ururka samafalka ee توفيق مقالة بورما يسدو كله حلبانات كسعوت دالك سويدن iyo مسؤولين كله iyo ملكي لها مهرات داسي أيان ظاهر intaasi kadibna waxa xagaasi hadalka kala duwan ka soo jeediyay isla markaana u mahad celiya mulkiilaha meheradani isla markaana bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan agabyada tayada leh ee lagu iibinayo meheradaasi Yusra Collection haweenweynihii kala duwan ee ka soo qayb galay furitaanka meheradaasi ma hadda labaadna maanta anagoo aad u badan oo qurbo joog iyo qolqol joog ba iskugu jirna waxaan u celinaynaa ayaan daahir oo ma sha Allah tabaaraka rahmaan magaasan ama carwo qofba sidoo u yaqaano oo aad u qurux badan oo European style ay ka dhigtay nooga furtay maanta magaalada Boorama waxaan leeyahay Allah ku barakeeyo Allah ku barakeeyo Allah ku barakeeyo adiga iyo inta dambe ee furi doonta waayo meheraduhu iyaga is iibiya magaaladu markay weyn tahay waxay u baahan tahay meherada aad u badan oo kala duwan marka waxaan leeyahay iyadoo la badan yahay hadalka walaalahay uga bixi doono mabruuq caleek Allah ku baarigo meheradii lagu mataqaan lagu nasto ee lagu nagaado ee Ilaahay ku barakeeyo waxaan ku leenahay Ilaahay ku barakeeyo Allah ku barakeeyo ma sha Allah waxaan ku leenahay ma sha Allah tabarakallah sida uu qurux badan yahay inuu si qurux badnaado ka sii qurux badnaado ayaan rajaynaynaa aad baan idin ku soo dhaweynayaa intiina timid oo dhan waan uga mahad celinaynaa aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay oo aan maanta nasiib u helay carwadan quruxda badan leh anigoo ah xildhibaanadii samaroonka ee Scandinavian-ka marka waxa weeyaan ayaanay mabruuq baan ku leeyahay Ilaahay hay nooga dhigo taynu ku faa'iidnay waxa weeyaan reer Norwayna waxa weeyaan inta ay ka badan baan idinka sugayay idiga laftiina waxaan ugu mahadnaqaynaa carwadan Norway Oslo City baa la idin soo raray reer Norway iyo shiiyo baa la idin soo raray soo yaaca in badan oo kalena waan rajaynaynaa in tolku ku soo kordhiyo ma sha Allah baan leenahay hambaliyo baan leenahay ayaan daahir iyo dhammaan qurbo joogta wadankii wax ku soo celisay aad baan ugu hambaliyeynayaa carwadan oo aad u qurux badan oo dumar oo dhan anfacaysa tu weyn iyo tu yarba waxaan leenahay hambaliyo in adeer makruug baan leenahay wadankeena aad ku soo noqoteen shaqaabuurka ka sameeyeen annaguna waan idinku dayanaynaa waan daba soconaa insha Allah aniga saacada casharaariyo ugu dambeyntiina waxa xagaasi ka hadashay ayaan daahir oo bulshada ugu bishaaraysay inay u hayaan agabyo tayo leh oo ka duwan kuwii ay ka heli jireen meheradaha magaalada Boorama isla markaana ay gaar u yihiin haweenweynaha kala duwan ee magaalada Boorama dhamaan waxaan u mahadnaqayaa horto dumarka qaaliga meesha ka soo qayb galay magacaygu ayaan daahir meheradan cusub magaalada ku soo kordhinay aan isleenahay insha Allah wixii ma aragtay wax ka dugan magaalada yaala aad insha Allah keentaan marka waxaan leenahay ku soo dhawaada meherada magacayga waa Yusra Collection insha Allah waan wada shaqayn doonaa dhamaantiin waad mahadsantiin